waxaan soo sabooteena agaasimaheeni hore ee isbitaalka Dr. Ridwan Maxamed Cali oo si fiican oo wax qabad aad u fiican u qabtay isbitaalka wax qabadkiisana laga sheekan doono aanan ka hor dhici doonin waxaan soo dhaweynaynaa sidoo kale Dr. Naciima oo ah agaasimaha cusub ee isbitaalka aanan ku dheeraaneyn waxaan leeyahay labada mas'uul ee loo kala wareejinay xilka qasiis socda iyo ka soo socda baan u duceynaynaa waxaan leenahay Dr. agaasimaha cusubna soo dhawow kii horena waxaan leenahay wax qabad aad u fiican oo lagu xasuusan doono ayaad noo qabatay inaan agaasimihii hore isbitaalkana sii sagootino agaasimaha cusubna aynu soo dhaweyno marka waxaan leeyahay agaasime kulley agaasimihii aan sii sagooteynay walow dhakhtariyowna naga tegayno dawhu nala joogo nala shaqaynayo laakiin xilka hore maamulka baanu ka sii sagooteynaa shaqadiisa ma sagooteyno kulley nala joogaa waxaan ku leenahay kulley wax lagu xasuusan doonaa qof walba wixii uu qabto taariikhda qori doonta markaas sidii hufneyd ee hawlkarnimada ahayd ee aan wada shaqeynay waa kaaga mahadnaqinaa iminkana waynu sii wada shaqeyn doonaa insha Allah taala oo deesaa nagama tagin agaasimaha cusubna waan soo dhaweynayaa agaasimaha cusubna xilkuun buu ku cusub yahay waa dhaqaatiirta awalba ka howlgeli jirtay isbitaalka marka iyagana waxa looga fadhiyaa competition baa lagu jiray haddaan anagu rag ahaan shalay agaasimahayn maanta dumar baa agaasimaha bal halkaad gaarsiistaan baan weeginaa iyo saad ula shaqeystaan waxa la idinka filayaa kulley inay idin geystaan tobka insha Allah taala muhiimadda munaasabadda waxa weeye inaanu sabootino agaasimaha hore isbitaalka soo dhaweyno agaasimaha cusub ee isbitaalka lana shaqeyno agaasimaha cusub ee isbitaalka sidii hore ee aan la shaqeynay agaasimaha hore isbitaalka anigoo ah maamulka shaqaalaha isbitaalka halkan waxaynu joognaa maanta madal qurux badan oo aynu kala wareejinayno laba agaasimo xilka u kala wareejinayno agaasimeeni hore iyo agaasimaha cusub agaasimeeni hore waynu sii dacaynana in Ilaahay mustaqbal fiican yaanu rajeynana isagoo kasii aan naga tagi doono ah dhakhtar ka sii shaqeyn doona gobolka agaasimaha cusubna waynu dacaynaa in Ilaahay xilka u fududeeyo shaqaalaha gobolka isbitaalka waxaynu leenahay ku soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub waanu la shaqeyn doonaa hadii la hayraa anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan ahay xubin kamid ah boardka SMAda Somaliland Medical Association u qaabilsan gobolka Gabiley marka waynu dardar gelin doonaa insha Allah wixii inta ka dambeeya inagoo duwaan gelin doona dhaqaatiirta gobolka saa iskugu duubnaadaan wax walba inoo yimaadana aynu uga wada hortagno sida masiibada iminka socotay COVID-19 run ahaantii muddadii aan halka isbitaalka ku sugnaa dhimirka waxaanu lahayn Dr. Ridwan wada shaqeyn waxaanu ahayn laba xubnood oo u shaqeeyo ummadda dadka aadka u liita waliba gaar ahaan isbitaalka dhimirka markaynu ka shaqeynayno sida qaybta shaybaarka iyo waxyaabo fara badan oo qaybtan kale isbitaalka oo generalka aynu adeeg ka helaynay sidii loogu talagalay dadka waliba aadka u liita ay favor noo sameynayeen oo bilaash aan shaybaarkoodan laga qaadin nalogu adeegayay waa waxyaabahan aad run ahaantii qaybaha wada shaqeynta ka mid ah oo aan halkaa ka xusayo maanta ayay tahay waxaan rajeynayaa sidoo kale Dr. Naciima in sidaa iyo si kasii wanaagsan aan wada shaqeyn doono xilkuna kulliba waxa weeyaan waa iska muddaxileed qof baa mar jooga qof baa imanaya inta qofku jooga waxa loo baahan yahay inuu la yimaado marka waxa weeyaan inuu ku shaqeeyo cadaalad inuu ku shaqeeyo waxa loo baahan yahay cilmi inuu ku shaqeeyo karti baa loo baahan yahay waxa weeyaan wax xisaab adag runtii waa soo dhaweynaa Dr. Naciima insha Allah taala waxaan rajeynayaa in shaqo fiican hogaamin fiican aad keeni doonto isbitaalka shaqaaluhuna waxa loo baahan yahay saas kale inay ula shaqeeyaan waxaan leeyahay Dr. Ridwan si fiican u soo shaqeynay isbitaalka wuxuu ka qabtay iyo hawsha uu hayay ummadana waxaan leeyahay Ilaahay ajisaya ka siiyo dhakhtarada cusub ee agaasimaha cusubna waxaan leeyahay xilka uu kugu duceynayaa Ilaahay kugu asturo waxaan aad u salaamayaa si gaar ah shaqaalaha isbitaalka Gabiley oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh horta alxamdulillah maanta waxa ii sharafa inaan muddo 5 sano ka bacdi
aan wareejinayo agaasimihii ama mas'uuliyaddii cisbitaalka guud ee gobolka Gabiley alxamdulillah ilaahay baa mahadle oo igu sugay maalinta iyo maantaba waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha cisbitaalka guud ee gobolka Gabiley ee muddada aan joogay si wanaagsan hagar la'aan daacadnimo iyo karti ila shaqeynay iyaga haddaanan jirin anigu waxa ma ahaadeen maanta iyaga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo mas'uuliyaddan iyo xil saartay muddada aan shaqeynayna taan siisay iminka waxaan agaasimo ahaa 7 sano 2 sano agaasimaha cisbitaalka TB-da ahaa iyo 5 sano maanta cisbitaalka guud hayay marka waa waqti dheer waxaan aad iyo aad isna ugu mahadcelinayaa maayirka degmada Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo muddada aan shaqeynay 5 sano runtii wax qabadka cisbitaalka fulinta iyo awoodaha cisbitaalku ma lahayn laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa inuu wax badan habeen iyo dharaar caawimo tu dhaqaale tu tale tu odayaad inta uu nala garab taagnaa aad iyo aad buu mahadsan yahay iyagana waxaan halkan ka xusayaa oo aan nala joogin oo quruxda cisbitaalka nadaafadda maanta aynu ku jirno iyo aragtida cisbitaalka hadiye medical suisse qole hadiye leeyahay oo odayaal elders oo waaweyn oo maanta quruxda iyo cisbitaalka qayb weyn ka qaatay oo aan aad uga xumahay inay ka bixi doonaan cisbitaalka 2021 bishii lixaad oo waqtiga uu gabaabsiyay laakiin qoladaasina sharaf iyo qiimo ayay ku leedahay waxaan iyagana halkan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Telesom oo cisbitaalka iyo leerkiisa iyo iftiimintiisa qayb ka ah waayo halka unit suuqa laga siiyo 0.8 cisbitaalka wax loo xisaabiyo 0.25 waa qiimaha ugu jaban ee magaalada ee ka jira gobolka Gabiley shirkadaasina aad iyo aad u mahadsan tahay horta haddii aan ka hadlo muddada aan joogay waxaa la magacaabay September 2013 2015 ilaa September 2020 wax qabadkii haddaan siraa waxa soo koobi kara ma aha wax qabadkii aan inta muddo aan shaqeynayay wuxuu maanta ka muuqdaa shaqaalaha cisbitaalka Gabiley iyo cisbitaalka Gabiley labadaas ka muuqda maanta waxaan wareejinayaa cisbitaal dhameystiran maxay ahaydey shaqaalihiisa oo maanta 29 shaqaale ah saddexdii shifti cisbitaalka oo shaqeynaya oo gelinkii hore gelinkii dambe dhaqaatiirta ay shaqeynayaan waxaan wareejinayaa agab 2 ambulance iyo gaari nooha oo cisbitaalku leeyahay inta waa wareejinayaa haddii aan ka hadlo diin cisbitaalka lagu leeyahay iyo wixii account-ka lagu jira maanta diinta cisbitaalka lagu leeyahay waa 4700 iyo $99 waayo alla aamin qolada dawladda waxay nagu leedahay 2199 human care waa $124 mishiinkii ugu dambeeyay cisbitaalkan soo iibiyay waxa electrolyte machine 2300 baa laga siiyay kun waan bixiyay 1300 oo deposit account-ka cisbitaalka maanta waxay noogu jira 4 milyan 651 laana marka inta waan wareejinayaa waxaan leeyahay dardaaran agaasimaha cusub Dr. Naciima runtii Dr. Naciima waa shaqaalaha firfircoon cisbitaalka kamid ahayd maantana waan soo dhaweynayaa waxaan ku rajo weynahay intii aan qabtay in ka badan inay qabato waxaan shaqaalaha ku dardaaraya Dr. si ila shaqeynayeen in Dr. Naciima ula shaqeeyo waayo waa walaasheen waa gobolka u dhalatay waxba u soo baratay inaanu garib istaagno mooyaane inaanu ku banaynaa laga filan maayo gunaanadku waxa weeyaan anigu dhakhtar baan ahay maanta waxa laga wareejiyay mas'uuliyaddii cisbitaalka laakiin shahaadadii dhakhtarnimo lagama qaadan dhakhtarkii waan ku shaqeynayaa ummadaydan ugu adeegaya marka hore gobolkayga iyo degmadayda iyo dadkayga wax soo bartay iminkana waxaan ku rajo weynahay inaan iyagii ugu shaqeeyo agaasimaha cisbitaalkana habeen iyo dharar aan garab taagnaado horta waxaan maleynayaa maanta hadal badan laygama filayo laakiin waxa layga filayaa waxa weeyaan hawl badan marka laba erey umaan ku soo koobi lahaa marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha hospitaalka shaqaalaha hospitaalka waxaan leeyahay waxay tiin backbone-kii ama laf dhabarkii hawl walba oo meesha ka socota guushaad inigu keentaan baa aniga guusheeda noqonaysa guul daradaad inigu keentaan aniga guul daradeeda noqonaysa marka mar walba waxaan leeyahay aynu fahanno aynu iska iloono suuqa iyo hawlahooga inagu halka waxa kaliya tiin ku mideysanahay waxa weeyaan hooyada bugta inaynu maxaan ku dhahday sida ugu fiican aynu adeegno horta midna kaftana hayga haatee waxaan ku faraxsanahay shaqaalaha ugu badan ee hospitaalku inuu dumar u badan yahay dumarna waxaan ku naqaanaa naxariis marka hadii maxaan ku dhahday maalin dhaweyd ba waxay yiraahdeen hospitaalkiiba waxa agaasimo looga dhigay gabadh markaas aan nidhi maxaa ku khaldan misalan de gabadh maamulkeedu kulay sidii maamulkii hore noqon maayo marka waxa leeyahay
marka aniguna waxaan jawaab kaliya tumaasiyo waxaan idin hooyada guriga yaa ka maamula hooyada guri dayacan wali mayno aragnay maya marka sidii hooyadoo kale un bay noqonaysaa insha Allah ilaahay haygu astro waxa kaliya taaniga iga go'an waxa weeyaan quruxda bayaan hospitaalkeenaasi iyo horumarkiisa iyo in aynu noqono hospitaalada kale ka duwanaada regional referral hospital ayaynu nahay oo dhammaan gobolada oo dhan inaga referral oo laakiin inaga ma muuqato insha Allah laakiin waxaan leenahay togba taagtibu rugmadaaye inaynu inta referral u noqono dhab ah gobolkeena ay gobolada kale oo dhanina ay noqono center waxyaaba maxaan ku dhahday caafimaadka ah oo available aan ka ahayn soo kordhino taasina waxay ku imanaysaa in isku duubni gobol oo inu gacmaha is wada qabsano dhamaanteynba xilkana saad arkaysaan ba ma fududa oo waxaan u fududay naf bila aadan ba meeshii in foofli ku ah qofka qaaday mas'uuliyadda naf bila aadanna maxaan ku dhahday aad bay mas'uuliyadaas u culus tahay Ridwaan oo isbitaalkan wax badan ka qabtay waxaanu leenahay wuxuu ka qabtay جزاك الله خير إلهي كأبالين تاريخنا ويقرصها نبوا وحو قبتي حلكنا ووريكتو وقرص كديب بدل بك قبت عسبتالك أقاسم عصب دكتور عيمة يوسف وحنو هل كانوا قد عينا إنه إلهي حلك كواسترو أو تال كان مانتا كاو دكتور روان وسو غارسي إن تكسي وضو إنه مرخاتك كأنها هاي حلو ريتشين تلبد المسؤول أقاسمي أو هراء عسبتالك دكتور رضوان محمد علي يا جاسمها عصب دكتور كرمتي كهول قلي دانا دكتور نعيم يوسف علمي إنه دكتور رضوان أينو جمع هذا علينا مسؤولية عسبتال كمدة وهيي شغادي ونعسنيد وقبتي كهم بريه إن إلهي نو ويدينه إنه أحصليه أشر كذي وناجيده إسلام كان إنه جود عينا دكتور نعيمة إنه إلهي كأستره مسؤولية دارنتي عسبتال كقبل دانته iyagoo labada dhakhtar runtii iyagoo dhakhaatiiro professional ah marka hore isbitaalka ka shaqeynayay aad iyo aad baan runtii iyadana u soo dhaweynana uga mahad celeynaa una duceynana ilaahay xilka ku asturo sidoo agaasimaha ka dhawaajiyay runtii isbitaalka wada shaqeyn baa ayaa runtii naga dhaxaysa intan dambana waxaan aad ugu dadaalanay in aynu sii kordhino adeegyada isbitaalku bixinayo marka hawlaha kale aynu hayno laga yimaado saddex meelood baa noo taargada oo aynu u baahannahay gobolkeena in isbedel fiican oo uu ka dhaco muxuu ahaay wanaagsan saddexda meelood meel waa isbitaalkan Gibiley oo uu noqdo isbitaal gobol oo service fiican aynu ku bixino oo iska daa gobolkeena aynu u baahannahay in wadanka meelaha qaar caafimaad leh nooga soo doonto isbitaalkan insha Allah taala sanadkan ilaa 5 dhismaynu ku soo kordhinay oo midii uu kan imika socday uu yahay waxa weeye iyadoo agaasimaha runtii aan aad ugu mahad celinayo qaybtiisa ku lahaa meelaha qaarna hay'adda Save the Children oo kale inagala shaqeynaysay waxa weeye qaybtii talaagadii meedku waan soo kordhinay oo dhisma laga sameeyay shift roomku waynu dhisnay qaybtii dhiigaan dhisnay waxa hadda socda qaybtii caruurta qaybtii macaanka dhawaan iyaduna bilaami doonta dhismayaal ahaan inta aynu soo kordhinay ayay ka mid tahay anagoo runtii agaasimaha iskaashadana haddana qorshaha waxa ku jirta inaan ugu yaraan 2 dhakhtar oo professional ah oo midwadiba uu yahay lafaha maadaama shilalku inagu badan yihiin aynu dhakhtarka runtii oo mid anagu mas'uuliyadiisa qaadi doono lacagtiisa aan bixin doono ka kalena wasaaradda caafimaadka aanu ka wada hadalnay labadaasina runtii inay isbitaalka howlgeli doonaan marka insha Allah taala waxa weeye waynu dadaali doonaa waxaynu ku dadaalnaa inaynu isbedel maalinba maanta ka horeysa ama ka dambaysa si horumara aynu sameeyno aad iyo aad baan runtii Dr. Ridwaan ugu mahad celinayaa waxaanan runtii uga sii mahad celinayaa inuu isagoo xilkii ka tagay oo halkan ka sheegay inuu isbitaalka sii shaqeyn doono iyada lafteedu arrin qadarin iyo sharafba uu ku leeyahay ma sagootay in Ridwaan mar haduu yiri dhakhtarkii waan ka sii shaqeynaya waxa filayaa waa in loo mahad celiyo ay mudan tahay waxa leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay shaqadii intii aad haysay hospitaalka kale anigu intii aan joogay waxaan u maleynayaa inta shilal ee dhacay ee waaweyn waxa filayaa mid aan iman dhakhtarka ma jiro ilaa iyo markii la soo qaaday dadka ama hadintaan ama dhaawacada ilaa iyo markii ama loo gudbinayay caasimadda ilaa inta laga daweynayay kama tagin
waxaan xasuusanay 2 jimce oo labada jimcaba salaadii iga tageen waxaan maleeyaa labadii iyo barkii baan ka tagay inta waxaan u taagnay dhakhtarka servicekiisa ma sha Allah si wanaagsan waxaan saluugo horta kuma arag dhakhtarkan waxaan maleeyaa waxa ka muuqata qurux iyo in laga shaqeeyay oo la maalgeliyay aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda hoose oo hogaaminaya duqa degmadu oo waxyaalo badan ama si fiican uga maalgeliyay kolley waxa la yiraahdaa waniyo qolada degmada ama duqa degmada wada amaantaaye de bahasha ka yara kala daayo in yar de qofkii niyo mar hadduu wax qabto dhibaatada waxa weeyaan wax qabadkiisina muuqdo mara waxa la arkaa barasaab iyo maayir meelaha isku haysto isriyanayay mar hadduu qofkii wax qabanayo de ilaahay ma qarin aadna saad u qarin karaysa marka waxa weeyaan inaad qariso maaha waa inaad sheegto waxaan ma hooyooyinku baa laga dhawaajiyay de aabuhuna waa ku jiraa ogaada dadka u gargaaraysan shilalka inaga inagu badan oo wajaal ee xadka ilaa iyo inta u dhaxaysa de xuduudda aynu la leenahay caasimada shilku ku baday aad iyo aad anu ma garanayo talo wuxuu yahay ma xadkan oo de dhalinyarada tegaysa ama xagga daroogada aba ma dhalinyarada gawaadhida baranaysa ayoo isiraahdo ku tijaabi wadada ma fahmin taasina waxay u baahan tahay in la baaro ama laamaha amniga ha noqoto ama dhakhaatiirta laftooda ha noqoto marka dadka dhakhtarka la keeno dhakhaatiirta waxaan ka codsanayaa inay qofkan horta marka ugu hore baaraan qofku ma daroogaysan khaasatan dhalinyarada in la baaro dhiigooda qofkan inuu wax cabsan yahay ama xashiishad ha noqoto ama ha noqoto khamri mana aha in loo xil qariyo hadduu walaalkaa la keeno haddii seedigaa la keeno haddii abtigaa la keeno iyo haddii adeerkaa la keenaba